waxa kale oo jira ugu miisan ciyaaraha Arsenal goorta ay la wareegayso ninkii William ahaa ayaa la xaqiijiyay warkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan wada hadalladu waxa riixaya Michael Arteta iyo Edu moogta waa nin Brazilian ah ya waa madaxda ugu sareeya kooxda Arsenal dhanka suuqa wayaan Edu marka Luisna waa nin Brazilian oo Arsenal jooga meeshan waa Brazilian micnaha ya oo aad bay isku fahmayaan bariyahan ciyaartooyga Brazilianka iyo Arsenal aad bay isku fahmi og yihiin sababtoo ah waxa jooga madaxii kooxda Edu baa joogo nin Brazilian ah ciyaartooy horna aha ninkan baa qalqaalna uu leeyahay xataa wali wuxuu aad ugu qanacsan yahay uu leeyahay inuu la shaqeeyo ninka la yiraahdo Michael Arteta uu ku qanacsan yahay qaabka uu sibada Arsenal u wado iyo qaabkiisaba uu aad ula dhacsan yahay baa leeyahay hadaba wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin wada hadallo ay hadda Arsenal kula jirtaa ninkii William ahaa wada hadallo ayaa soconaya kadib markuu ciyaartooy iska diiday inuu ku biiro kooxda David Beckham ee Inter Miami oo u soo bandhigtay mushaarad aad u fara badan iyo sidoo kale Chelsea oo inuu doonaysay ciyaartooyga inay sii ceshato hadaba warkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin oo ay wargeysadii ugu dambeeyay saacadan wax ka qoreen ciyaaraha sida The Telegraph waxay leedahay Gunners waxay diyaarinaysaa heshiis 3 sano ah oo ay ka siixayaan ninkan waxaanay Arsenal ciyaartooyga gacanta ku dhigayaan bal leeyahay horaanta isbuuc soo socda sabti ama axad William waxa weeyaan bal leeyahay kooxda Arsenal marka horaanta isbuuc soo socda marka lagu leeyahay ma taqaana waa bilowga isbuucu way qaadanayaan Arsenal William marka Arsenal aad iyo aad bay ugu kalsooni qabtaa qaadashada ninka kan William marka isbuuca dambe horaantiisa ayaa la wareegaya ama sabti axad William waxa uu noqonayaa nin ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhanka kalena waxa jira Emiliano Martinez oo ahaa goolhaye geesiga noqday Arsenal in heshiis baa laga sii xal weeyay isaga Aubameyang waa muhiimad ugu weyn Arsenal labadaas nin ee geesiga goolka dhaliyaha ah iyo kii difaacayba in Arsenal heshiis la siixdaan bay doonayaan kooxda ku sii celiyaan bay doonayaan hay Emiliano ayaa la arkay habeenkii inuu ahaa geesiga xataa ilmeeyay maadaama rafaad uu ku soo koray cidiisiiba xataa markii ciyaartu dhamaatay intuu gees fariistay live-ka kala hadlayay asugu faqri ku soo barbaariyo cidiisiiba cimada ku tuuray xitaa war ayaa sheegaya in Arsenal 40 milyan ay ku iibinayso Ganduzi oo ay kaga iibinayso Juventus and Barcelona midkood kuwa baa raadinaya balse war ayaa sheegaya in Arsenal diyaar u tahay Ganduzi inuu ku soo bedelato ciyaartooyga Rakitic oo Barca u ciyaara hatta arimaha Coutinho Arteta waxa leeyahay niyada buu gashta ninkan oo wuxuu ku daray shaxdiisa xagaga dambe warqad buu u qoray baa leeyahay xagaga dambe kooxdu u ciyaaraysa ayuu ku darsaday lagu leeyahay Arteta ninka la yiraahdo Philippe Coutinho marka Coutinho waa imaanaya Ganduzina waa baxaya barnaamijkeeni waa naga inta nabadgelyo